marka axaadiistaas iyo kuwo kale oo lamid ah ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu indha kuulan jiray tilmaamayaan. marka qofkii aan la socon oo rag ah maanta laga bilaabo waa inuu indha kuusha marsadaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku daydaa si uu u helo sunnadii iyo raacitaankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam faa'iidooyinka nabigeena indha kuusha oo ku sheegana uu helo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت صومن رمضان كي عبادة إلهي كأقبله انت أنصونين وعذر دار أما عذر رأسومي وايين إلهي عذر دار هذا كبابيو عذر هذا إلهي كعافيو inta aan sooneen oo cudurdaar iyo cudur la-aan u soomi weysay ilaahay waxaan u baryaynaa inuu soo hanuuniyo. waa qaybtii lixaad ee barnaamijkeenii taxanaha ramadaanka ee aan kusoo qaadan jirnay tilmaamaha iyo dhaqamada iyo qaab abuureedka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu abuuray. insha allah qaybtan waxaan uga hadli doonaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam indha kuushii oo marsan jiray iyo qaabka uu indha kuulan jiray iyo waxyaabaha uu ku tilmaamay indha kuusha faa'iidooyinka laga helo. xadiidka ugu horeeya waxaa laga wariyay saxaabiga ibnu cabaas radiyallahu canhuma xabru hadihi al-umma ummadan caalimkeedii wuxuu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu yiri iktaxiluu bil-ithmid waxaad ku indha kuulataan indha kuul madow ama indha kuusha madow fa innahu yajluu albasar wayunbitu shacar. maxaa yeelay laba faa'iido ayaa ku sugan indha kuusha madow. faa'iidada koowaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay in indha kuusha madow aragga ee feedo oo qofka aragga ay u siyaadiso. faa'iidada labaadne wayunbitu shacar waxay soo dhalisaa uu yiri timaha meeshaas laga indha kuusho iyo timaha meeshaas ku yaalaan indha kuusha haddii la mariyo indha kuusha madow way badanahayaan. xadiidkaas wuxuu ku yiri ibnu cabaas ana الnabiya sala allahu calayhi wasalam lahu mukxulatun yaktaxilu minha. nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu lahaa weel oo ka indha kuusho ama aalad iyo qalab oo ku indha kuusho wuxuuna ka indha kuulan jiray kula laylatin 3 fi hadihi wa 3 fi hadihi. wuxuuna ka indha kuulan jiray il kasta 3 ishaana 3 ayuu u indha kuuli jiray ishaana 3 mar. sida ayuu ibnu cabaas xadiidka ku sheegay. marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in nabigeena calayhi salaatu wasalaam il kasta 3 mar oo indha kuusha marin jiray iyo in laba faa'iido oo ku sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam indha kuusha mideeda madow. xadiidka kaleeto isla waxaa laga wariyay ibnu cabaas radiyallahu canhuma wuxuu yiri kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee wuxuu ahaa yaktaxilu mid indha kuusha qabla an yanaama bil-ithmid inta oona seexan ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam indha kuulan jiray 3 fi kulli cayn il kastana 3 mar ama 3 goor ama 3 jeer ayuu u indha kuuli jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam. yaziid ibnu haaruun ayaa asna xadiidkiisii wuxuu ku yiri ina الnabiya sala allahu calayhi wasalam kaanat lahu mukxula. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa u sugnaatay aalad iyo meel oo ka indha kuusho qalab oo ku indha kuusho ayuu lahaa yaktaxilu minha cinda الnoom marka oo seexan rabo agteeda ayuu wuxuu ka indha kuulan jiray 3 fi kulli cayn 3 ayuu il kasta u indha kuuli jiray il kasta 3 mar ayuu indha kuusha marin jiray. xadiid kale oo ibnu cabaas laga wariyay ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri ina khayra akxaalikum al-ithmid indha kuulyaashiina midka ugu khayrka badan waa indha kuusha madow. faa'iidooyinkeedana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu sheegay oo labadii faa'iido oo aan soo marinay ayuu ku sheegay oo ahayd yajluu albasar wayunbitu shacar. wuxuu feedaa indha kuusha madow waxay feedaa oo ay siyaadisaa aragga
timahana way soo saartaa. marka axaadiistaas iyo kuwo kale oo lamid ah ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ina kuulan jiray tilmaamayaan. marka qofkii aan la socon oo rag ah maanta laga bilaabo waa inuu ina kuusha marsadaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku daydaa si uu u helo sunnadii iyo raacitaankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam faa-iidooyinka nabigeena ina kuusha uu ku sheegana uu helo. halka ayaan ku sameynaa maanta barnaamijkeena. ilaahay ramadaankii cibaadadaha naga aqbalo. insha allah ramadaan ayaa lagu jiraa, marka kheyrka ha loo jabnaado, barnaamijka leegta hala saaro, hala sii sheergareeyo, channelka subscribe-ta hala saaro, kheyrka aan wadaagno, aan isku taageerno, insha allah aan isku dhiirigelino. ilaahay wadankeena dowlad caadila oo diinta iyo cadaaladda wadanka ku maamusha oo nabadgelyo iyo horumar wadanka gaarsiisa ilaahay hana siiyo bifadli hada الشهر المبارك. bishaan barakeysan fadligeeda ilaahay hanagu siiyo arrinta. بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.